بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعندا وديال كسو دوادا wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo hadahayo kala aad ka daawataan Asaansan Media. Qodobada wararkeena aan idinku haynana waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo faahfaahiyay sababta rasmiga ah ee ciidanka xoogga dalka aysan u helin mushaaraadkooda bilihii la soo dhaafay. Faahfaahinno ayaan idinkaga haynaa. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay dagaal beeleedyada ka socda gobolka kamid ah dalka maxay ka yiraahdeen wararkeena ayaad ku daawan doontaan. faahfaahinno ayaa ka soo baxaya sababta al-shabaab ay u qabsadeen degmada Balcad saacado badan ay u haysteen. xogab ku saabsan ayaad wararkeena ku daawan doontaan. qodobadaas iyo qodobo kale oo ay kamid tahay Soomaaliya oo heli doonta ciidanka hortaga qaraxyada iyo weerarada ka dhaca dalka ayaan idin soo gudbin doonaa ee u diyaar garooba daawashada qodobadaas oo faahfaahsan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa qeyl yaab leh u sameeyay sababta aysan ciidamada dawladdu u qaadan mushaar muddo 4 bilood ah. Khayre oo ka qayb galay barnaamijka dardargelinta iska dhexgalka bulshada iyo hay'adaha amniga ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ee la diiwaan geliyay ay si joogto ah u helaan xuquuqdooda balse ciidamada aan diiwaan gashnayn ay yihiin kuwa uu ka maqan yahay mushaarka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in kuwa aanan wali marin tirakoobka ciidanka la siin doono xuquuqdooda marka diiwaangelintu ay soo ilaato. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dawladdu ay ka go'an tahay in askari kasta uu xuquuqdiisa helo isla markaana lala xisaabtami doono haddii ay jiraan kuwa aan dalka iyo dadka u shaqayn mushaarna qaata. si kastaba Ra'iisul Wasaaraha ma sharaxin sababta haddii ciidankan yihiin kuwa aan diiwaan gashnayn ay ku qaadan jireen mushaaraad iyo waxa hadda ka qeylisiyay oo intii hore ay la aamusnaayeen. madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa si adag kaga hadlay xiisadaha colaadeed ee ka taagan deegaano iyo degmooyin ka tirsan deegaanada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle kuwaas oo u dhaxeeya maleeshiyaad wada dega Xiraale iyo sidoo kale degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qoraal uu soo dhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kaga hadlay dagaalada ka dhacay deegaano ka tirsan Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe waxaana uu dalbaday in si dhaqso ah loo joojiyo dagaal beeleedyada ka dhacaya goboladaasi. sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka dalbaday dawladda Soomaaliya iyo maamulka Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle inay xidhiis ka saaraan dagaaladaasi sidii loo qaboojin lahaa. sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay dagaalada ka dhacaya gobolka Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana uu baaq u diray dadka dagaalamaya. waxaan ugu baaqayaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud inay colaadta ka fogaadaan oo si shuruud la'aan ah ay xabad u joojiyaan wada hadal iyo isqancinna lagu dhameeyo wixii tabasho ah ee u dhaxeeya ayuu yiri. dagaalada labada maleeshiya u dhaxeeya ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyada dagaalamay iyo sidoo kale dad shacab ah. dagaalamayaasha al-shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ay maamulayeen degmada muddo saacado ah. al-shabaab ayaa qabsaday xarunta degmada saldhigga booliska iyo xabsiga dhexe ee degmada waxayna dab qabadsiiyeen saldhiggii booliska ee degmada Balcad. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya sida ay al-shabaab u qabsadeen Balcad. dad kala duwan oo ku sugan Balcad ayaana warbaahinta u sheegay in xalay degmada aysan ku sugnayn inta badan ciidankii maamulka ee al-shabaab iska difaaci jiray. ciidamadii ku sugnaa degmada Balcad ee militariga ayaa la sheegay inay ku baxeen dagaalkii ka dhacay degmada Cadale waxaana magaalada ku sugnaa 2 cabdibile oo kaliya iyo dhowr askari. waxaa la aaminsan yahay in al-shabaab qabsashada magaalada ay u fududeeyeen sirdoon ay ku leeyihiin degmada sababtoo ah waxay ka warqabeen in ciidamadii ku sugnaa Balcad ay shalay ku baxeen dagaalkii Cadale ciidan badanna aysan ku sugnayn degmada sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in hadda la geeyay ciidamo kale oo dheeraad ah kuwaas oo isugu jira boolis iyo military fariisin ka sameystay goobihii xalay ay ku soo weerar tageen al-shabaab ayaa degmada xalay ka soo weeraray 3 jiho oo kala ah 2 wado oo jaay ah kana timaada dhinaca degmada Afgooye iyo wada ka timaada dhinaca degmada Jowhar halkaas oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka degmada Balcad waxaana dagaalkii halkaas ka dhacay kala wareegeen degmada Balcad. ciidamada shabaab ayaa waxa ay u suura gashay inay gudaha cagta dhigaan degmada Balcad isla markaana ay qabsadaan xarunta maamulka saldhigga ciidanka xarunta nabad sugidda iyo goobo kale oo magaalada gudaheeda ah. saldhigga degmada Balcad ayaa waxay ka sii daayeen dhammaan maxaabiistii ku xirneed sidoo kalena waxay gubeen gaari uu lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle gaari uu lahaa agaasimaha idaacadda Balcad iyo sargaalka qaybta canshuuraha maamulka degmada u qaabilsanaa oo guumisto uu lahaa iyo gaarigiisaba ay gubeen.
saraakiisha ciidamada dowladda ee degmada Balcad ayaa sheegay xalay oo dhan inaysan seexan oo ay ku jireen xaalad feejignaana kadib markii maamulka degmada iyo ciidanka ay isugu tageen xaafadda Xawataako oo ah meesha ay degan yihiin ciidamada AMISOM xalay oo dhanna difaac ay halkaasi kaga jireen. waqti dambe oo xalay ayaa la sheegay shabaab inay isaga baxeen guud ahaan degmada Balcad iyadoo uusan ka dhicin wax dagaal ah, hase ahaatee waxay sii qaateen dhammaan qalabkii kala duwanaa ee yaalay goobihii ay qabsadeen. ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya ayaa saakil lagu arkay degmada Balcad kuwaasi oo tagay goobihii shabaab xalay ay qabsadeen. Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay heli doonto ciidan ka hortaga qaraxyada iyo weerarada ka dhaca dalka. taliyaha ciidamada booliska dalka Jabuuti Korneel Cabdullaahi Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maanta khudbad u jeediyay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya kadib markii uu booqday dugsiga tababarka ciidamada booliska Soomaaliya ee General Kahiye. taliyaha ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay Soomaaliya u tababari doonto ciidamo boolis ah oo ka hortaga qaraxyada iyo dilalka qorsheysan oo al-shabaab ay ka fuliyaan magaalooyinka iyo gobolada dalka. taliyaha Jabuuti ayaa sheegay in Soomaaliya dhibaato badan ay ku qabto dilalka ay fuliyaan al-shabaab iyo kooxaha kale, sidoo kalena ay dhib badan ku qabto qaraxyada al-shabaab ee magaalada Muqdisho. sidaas daraadeedna dowladda Jabuuti ay u tababari doonto ciidamo arrimahan u tababaran. 4 taliye ciidan iyo duqa Muqdisho ayaa qarax ka badbaaday sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa shaac ka qaaday in isaga gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaasha booliska iyo asluubta ay ka badbaadeen qarax bilo ka hor ka dhacay agagaarka kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho. taliyaha ayaa sheegay in 4tooda oo hal gaari saaran markii ay wax yar ay dhaafeen kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho halkaas uu ka dhacay qarax weyn oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Indhaqarshe ma sheegin taariikhda ama maalinta uu falkaasi dhacay, sidoo kalena ma sheegin qaraxaasi ka dhacay nambar 4 halka sida tooska ah loogu weeraray haddii iyagu ay ka badbaadeen. hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay xaflad xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho isla markaana looga hadlayay isdhexgalka ciidamada iyo shacabka gobolka Banaadir. xafladda ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. wararka naga soo gaaraya magaalada Berbera ayaa sheegaya in maalintii 6aad ay hakad ku jiraan dhaqdhaqaaqii ganacsi ee dekada Berbera kadib markii go'aan dhawaan ka soo baxay maamulka shirkadda DP World uu saameeyay arrintaasi. xiisad ayaa ka taagan dekada Berbera taasi oo ka dambeysay kadib markii shirkadda DP World ay 12 bishan Maarso ay soo saartay go'aan wax looga bedelay lacagaha laga qaado ganacsatada adeegsata dekada iyo markii la kordhiyay qiimaha sarifka dollarka. ganacsatada adeegsata dekada Berbera oo ka carooday go'aankan dhaqan galay ayaa guddi iyaga matalaya iyo xubno ka socday ruuxda ganacsiga Somaliland waxay la kulmeen madaxweyne Muuse Biixi, waxaana kadib la sheegay inay ka heleen go'aan aysan ku farxin kaasi oo ahaa in shirkadda DP World ay maalgelisay dekada isla markaana go'aanadeeda ay iyadu madax bannaan tahay. arrintaasi ayaa ka careysiisay ganacsatada, waxaana la sheegay inay joojiyeen shaqadii ka socotay dekada Berbera iyo adeegyadii ay kala soo degi jireen, waxaana joogsaday shaqadii dekada maalintii 6aad. DP World ayaa shalay sheegtay in muddadii ay gacanta ku haysay dekada Berbera ay ku maalgelisay 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah, lacagtaas oo qayb badan oo ka mid ah dekada dib u habeen loogu sameeyay sababtayna inuu dakhliga dekada sare u kaco. dhowaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo ka careysan heshiiskii dekada Berbera ayaa tegay magaalada Dubai isagoo kulamo la qaatay madaxda Imaaraadka iyo shirkadda DP World, waxaana muuqata inuu isbedelay go'aankiisii hore. guud ahaan daawadayaal saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aad ka daawanayseen Astaansan Media. inta warkan kiisa xiga aan ku kulmi doono dhammaanteen waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. ha hilmaamin inaad subscribe dhahdo channelkan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.